السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة قيمة بدن وملك استاجوبتين كسر وهذا جنرال كمسرع official لكم برتين 10 مادة كيمستري عوان كينا نوحنا نقطنا chemical properties of alkenes استعمها كيميكية alkenes كأي رمنا أنا كهذا الله وحن لا سعود سنة وأنا كعبد الله على كلامه حرنا داودي إن نسفي عنه كهذا الله وحلي chemical properties of alkenes alkenes كمركان كهذا دونه هذه اللي ورا ليستي chemical properties of alkenes لحدا محبو أيام يشكو hydrogenation in hydrogen قدر halogenation in halogen قدر hydrohalogenation in hydrogen القدر halogen القدر hydration بالقدر combustion reaction ليرا polymerization ليرا هذا أوكي أدم أنت سوسو قدبو لحداس يا chemical properties of alkenes كسو قابي دونا وحنا ربنا إنن كهرمرنا متكوبادو alkenes حالنا alkenes كرياكتي وحول فالجليا with hydrogen in the presence of metal catalyst أيضا يكترتو metal catalyst وحا catalyst نيكل أي catalyst حال رأي إن لصوصار وحلي رأى alkene حال رأي إن لصوصار وحلي رأى alkene markii la rabo in alkene la soo saaro meeshan waxa yaala dabar double bond ah halkan dabar la jabina markii dabarkaas la jabiyo waxa dhici doonta meeshan hydrogenation waxa lagu daraa laba hydrogen sooman hal hydrogen oo kamid ah inta ku darsami doonta hal hydrogen inta kamid ah waxa ku darsami doonta inta ku darsami marka waxa soo baxay alkene ayaa soo baxay oo ah ethane waxa soo baxay ethane ayaa ka dhashay meesha waxa ka dhashay ethane ماشي كده شيء اثنين marka maxaa la diyaariyay marka waxa la yiraahdo alkene xagee laga soo diyaariyay alkene laga soo diyaariyay prepare xagee laga soo diyaariyay alkene waa astaamaha kiimikeed ee lagu yaqaano alkeneska in hydrogenation ta sameeyo oo diyaarin karo waxa la yiraahdo ethane qodob kale waxa waa addition in lagu daro wax la yiraahdo of halogens in lagu daro haloginku oo bromine waxa lagu daraa waa maxay bromine kana waxa laga wadaa wax la yiraahdo halogens haloginku aad maqlaysid waa maxay bromine tan marka waxa la dhahaa alkene ayaa wuxuu la falgalaa wax la yiraahdo halogens sida chlorine oo kale bromine iyo iodine mid yarta noqoto meesha bromine la keeni karaa bromine okay meesha laba bromine la falgashay dabarkan ayaa la jabinaa dabarkaas by bondiga la jabinaa markii dabarka la jabiyo hal bromine intay ay doontaa hal bromine waxay ay doontaa intay ay doontaa marka waxaan dhihi doonaa marka CH2 aan leenahay dabarkii markaan jabinay inta salaano kale saddex gacan oo inay leedahay gacan laba hydrogen oo kasta gacanna carbonku waxa la afar gacan oo leeyahay gacan inta Br ku haysta laba gacan hydrogen gacan waa taas afartiisa gacan carbonka waa complete u tahay marka waxaan leenahay CH2 aan soo qaadanay gacanta markii la jabiyo hal bromine inta lagu dhijinaa kan kalena waxa lagu dhijinaa hal bromine lagu dhijinaa marka hadda meeshan waxaan si toos u diyaarinay wax la yiraahdo alkene ayaan diyaarinay waxaan diyaarinay wax la yiraahdo alkene oo single bond ah meeshan hadda way kaaga cadda marka waxaa jirta qaacida la yiraahdo ethene reacts markuu explosively with fluorine markuu la falgalo wax la yiraahdo fluorine ethene waa tana intana waxa laga wadaa ethene intaas waxa laga wadaa ethene markii la falgaso fluorine to produce waxa la soo saaraa wax la yiraahdo carbon waxa soo baxa wax la yiraahdo hydrogen fluoride oo gas ayaa soo baxa hydrogen fluoride oo gas ayaa soo bixi carbon waa kana hydrogen fluoride oo gas sal meeshan meeqa hydrogen laba hydrogen oo jir afar hydrogen waa afarta hydrogen kuwaas ah okay waxa kale ku soo shal meeshan waxa taale laba loo ku dhufo laba isku dhufo waa afar hydrogen meeshan afarta hydrogen waa taal inta waxa taale laba carbon labadii carbon waa tan labadii carbon waa taas marka hadii ethene ay la falgasho fluorine maxaa soo baxa carbon iyo hydrogen fluoride oo gas meeshan safiican iska fiiri hadii ethene ay la falgasho fluorine maxaa ka dhasha carbon iyo hydrogen fluoride oo gas ka dhalana very important waa meeshan in la weydiiyo waa macquul la soco waxaan leenahay hydrohalogenation sala addition waxaan ku dari doonaa waxa la yiraahdo addition waxaan ku dari doonaa waxa la yiraahdo hydrogen halide salaano kale meeshan ay taagan tahay hydrogen oo kale iyo kisa ay taagan tahay halogen group sala kale ayaan ku maxaa addition aan ku dareynaa
tusaalahaan oo kale meeshaan oo kale hydrogen maxaa u taagan hashta xtan waxaa u taagan waxa la yiraahdo chlorine tana u taagan tusaale intaan maxaa u taagan waa kaasa hashtan maxaa u taagan waa kana marka waxaan u maleeyaa inaan fahmay alkene waxa la alkenes reactive waxa la farqi with hydrogen halides such as hydrogen and hydrogen chloride and hydrogen bromide to form waxaa sameeyay waxa la yiraahdo mono halo alkenes waxa la yiraahdo for example tusaalahaan kale dabarkaana la jebinaa marka dabarkan markii la jebiyo waxaa dhici doonta ustaado hal hydrogen oo kamid ah waxay ku dhigi doontaa CH2 meesha CH3 ay noqon doontaa waatana hadda meeshan maxay noqotay CH3 CH2 daana waxaa lagu dhiji doonaa chlorine tan maxay noqon doontaa ethyl waxa la yiraahdaa ethyl chloride soo bixi doona waxa la yiraahdaa ethyl chloride ayaa soo bixi doona soo soco waxaa la diyaariyay marka mono halo alkenes waxaa la diyaariyay mono halo alkenes ayaa la diyaariyay macnaha ethyl oo single bond ah oo la socoto chlorine intaana waxaa laga wadaa waxa la yiraahdo mono halo alkene waana alkenka la diyaariyay in this process ankan we use waxaan isticmaalaynaa waxa la yiraahdo rule sharci noocaas lagu magacaabo in this process ankan we use waxaan isticmaalaynaa rule sharci lagu magacaabo Markovniks rule sharcigan wuxuu qabaa Markovniks rule-ka wuxuu qabaa if the alkene hadii alkenka is symmetric is asymmetric alkene tusaale haduusan isku mid ahayn alkenka tusaale meeshan CH2 meeshan laakiin haduu CH3 oo la symmetric hadda wuxuu noqday CH2 chlorine sadro to rule sharciga to predict waxa la saadaalay major product la saadaalay waxa la saadaalay waxa la yiraahdo major product kan intaan waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo major ay noqon doonaa intaan maxay noqon doonaan la yiraahdo major one maxay noqon doonaan waxa la yiraahdo minor ay noqon doonaa marka waa kuna marka ethene waa kana ethene waxa lagu daray hydrogen fluoride lagu daray soo mar major qaabkana loo qoray soo mar minor qaabkana loo qoray waxaan u maleynaa daawade in aad si fiican u fahamtay laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay in si fiican u fahamto sharciga la isticmaalay intaanan ka gudbin su'aal waxaa jirta laga yaabo in la isweydiiyo oo kale Markovniks rule sharcigiisa muxuu ka hadlaa status wuxuu sheegaa hydrogen is added hydrogen ayaa waxa lagu daraa to the carbon atomka lagu daraa of the double bond carbonka double bondiga waxa lagu daraa hydrogen salaanka carbonkan koowaad oo double bond ku dhigana sama maxaan ku darnaa diet hal hydrogen ku darnaa sax maxaan ku darnay carbonka double bondiga with the greatest number isagoo oo markaas wadana greatest number of carbon midka ugu weyn midkaasoo leh greatest number tirada numberka ugu weyn of carbon atomka isagoo leh waxaan meeshaan rabaa inaan wax yar kaga hadlo waxa la yiraahdo hydration ama addition of water hydration wax kale ma ahan addition of water biyaan rabaa inaan ku daro alkeneska waxaan leenahay reactant markay alkenka markuu la falgalo shay biyo ah waxaa soo baxa waxa la yiraahdo alcohol tusaale waxaa soo baxa alcohol meeshaan hadda tusaale ahaan oo kale double bondigan markii meeshaan qaabkan oo kale u qoranta qaabkan oo kale u qor fiiriya qaabkan oo kale u qor OH habkan labada habada u qor oo isku mid ah hadii ay la falgalaan biyo dabarkaas double bondiga aan jabiyo dabarkan hadii aan jabiyo hydrogentan xagee ku dhigi doontaa hydrogentan intee qabsan doontaa waxay noqon doontaa CH3 waa taasa waxaa la soo qaadaa haddana CH2 waa tana halkaas waxaa lagu dhiji doonaa OH waa kana marka inta maxaa ka soo bax marka waxa la yiraahdo ethanol waxaa soo baxay waxa la yiraahdo ethanol oo alcohol ah waxaa soo baxay ethanol hadda maanta maxaa fahamta marka alkene waxaa laga diyaari karaa alcohol very important question meeshaan alkene goormee laga diyaari karaa alcohol mataqaan waa markii alkenka oo la falgalo shay biyo ah waxaa soo baxa waxa la yiraahdo alcohol soo baxa soo waxaa soo baxa marka maxaa waa alcohol oo ethanol ah waxaa leenahay alcoholiska react waxay la falgalaan with sufficient or sufficiency macnaha waxaan ka wadaa qaybtan waxa iska leh combustion iska leh tan maxaa iska leh combustion ayaa iska leh waa arki doonaa yaa iskuma jirta yaa okay markaan waxaan rabnaa inaan u gudubno waxa la yiraahdo ustaado combustion reaction waxa la yiraahdo macnaha combustion alkene hadii lagu gubo oxygen ka filan tusaale ahaan kale meeshan waxaan dhihi doonaa alcoholiska
haddii lagu gubo oxygen ku filan ama oxygen aan ku filnayn waxaa soo baxa waxa la yirahdo carbon dioxide iyo waxa la yirahdo carbon monoxide iyo waxa la yirahdo carbon dioxide respectively. taas waa laga simay. Okay, waxaan leenahay hadda alkene waa kana alkene oo la yirahdo ethene ayaa wuxuu la falgalay oxygen oo sufficient ah. maxaa soo baxay carbon dioxide plus water soo baxay. waa complete combustion oo gubasho dhameystiran. waxaan leenahay alkene oo ethene ayaa oxygen aan ku filayn lagu gubo. maxaa ka dhalanaya? waxaa ka dhalaya carbon monoxide plus water. reactionka noocan waxa la yiraahdaa waa incomplete combustion, gubasho aan dhameystiran la yiraahdaa haddii carbon monoxide meesha soo galo. oxygen haddii alkeneka lagu gubo oxygen aan ku filnayn oo insufficient ah waxaa ka dhalanaya carbon monoxide plus water ka dhalanaya. waxaa jira qaacido guud oo lagu xaliyo general equation for complete combustion of alkene. qaacidadan ayaa ku xali kartaa. waxaa ku xali kartaa qaacidadan ayaa ku balance garay kartaa marka wax balance gareyn. okay, hadda balance marka laga hadlayo kale xarna in isticmaalo kale waxa la yiraahdo xarna in isticmaalo kaarboonka afraad oo kale. kaarboonka afraad oo kale waxa waaye kaarboonka afraad waa butene. tusaale intaan maxaan ku bedelanaa mataqaanaa? intaan waxaan ku bedelanaa number of carbonki waa ms 4. waxaan dhihi doonaa marka qaacidadiis waxay noqon doontaa u qaado number of carbonkiga inta waxa waaye 4 intan waxa waaye 8 u qaado. okay, marka waxaan dhihi doonaa number of carbonki masuu leeyahay horta meel kasta in aan ku arko maxaan ku bedeli doonaa 4 ayaan ku bedeli doonaa. marka waxaan dhihi doonaa meeshaan oo kale daawo si fiican la soco carbon meeshan maxaan u qaatay 4 ayaan u qaatay. daawo meeshan maxaan u qaatay 4 ayaan u qaatay. marka waxaan bedelanaa colorkaan bedelanaa daawadaha qiimaha badan oo ila soco. meeshan waxaan dhihi doonaa hydrogen meeshan 2 soo maaha 2ga waxaa bracket gelinaa ku dhufa doonaa waxa la yiraahdo 4 waa number of carbon plus 3 maxaa lagu dhufa doonaa meeshan waxa waaye loo qeybiyay 2 loo qeybiyay 2 midkii horeba wuu lahaa loo qeybiyay 2 loo qeybiyay 2. marka maxaa waaye 3 maxaa lagu dhufa number of carbonki meeqaan haysta aniga 4 haysta sax. bracketka xir oxygen deh maxaa loo qeybinaa 2 loo qeybiyay haye gas haye inaan fahmno isku daynayaa number of carbonkan maxaan ku bedelanaa 4 ku bedel carbon dioxide plus number of carbonki waa ms 4. okay, meeshan waxaan dhihi doonaa C4 hydrogenada 2 4 ku dhufo 2 4 ku dhufo 2 isku dhufo waxay noqon doontaa 8 plus 3 4 ku dhufo waxa waaye 12 oo oxygen ah oo gas ah. okay, maxaa loo qiimeynaa 2 maxaa leedahay marka intan sidii usoo qaado hadhow waa gaaska waxaa isku darsay plus 4 water. okay, halkan marka maraayo tiradan waxaan leeyahay labadan tiro hadday isku qaybsamaan labadan tiro
hadday isku qaybsamaan waa isku qaybinaa laakiin haddaysan isku qaybin labaan bracket gelina hadda isku qaybsan inta lagu qaybi waa hal inta lagu qaybi waxaa waaye waa 6 marka maxaa meesha ka dhashay waxaa ka dhashay 4 carbonka siisa loo soo qaatay 8 ay noqotay plus 6 oxygen gas ah waxaan leenahay 4 carbon dioxide plus water hadda waxaan isla fahnay meeshan haddii numberka u qaybsan waa loo qaybinaa balance hadduu kan u qaybsan maxaa u qaybsan waayana maxaa la sameynaa marka inta 4 carbon haystaa sax inta meeqa haystaa 4 carbon inta meeqa haystaa 4 carbon waxaan fiirinaa marka hydrogen inta 8 hydrogen haystaa inta waxaa waaye 4 lagu dhuf waa 8 product waxaa haystaa 8 inta 8 haystaa inta waxaa waaye tusaale ahaan kale 6 lagu dhufo 12 oxygen inta haystaa oxygen tan inta ah labadan isku dhufo waa 8 8 waxaa ku dartaa 4 ku dar 12 soo 4 waxaa ka dhaxayda hydrogen tan iyo oxygen tan ka dhaxayda 4 maxaa lagu daraa marka lagu daro inta isku darsan marka waa balance waxaa waaye balance marka meeshaan oo kale waxaan hadda fahnay tiradu hadday dhaban tahay way isku qabsanayaan laakiin tiradu hadday kisto kale hal example oo kale meeshaan aan ku qaadanaynaa hal example oo kale aad noo anfacaya jira hal example oo kale aad noo anfacaya jira tusaale ahaan oo kale number of carbonka C3 oo kale C3 oo kale iyada laga rabo meeshaan waa 6 okay kan oo kale sidee loo balance gareynaa waa su'aal isweydiin badan waxaan leenahay horta intaan sida usoo qaado wax problem ma lahan intaan sida usoo qaado number of carbonka 3 u qaadanayaa ma isku fahanto meesha isku daya number of carbon waxaan qaadanayaa 3 plus aan leeyahay 3 maxaan ku dhufanaa 3 aan ku dhufanaa 3 markaan ku dhufto meesha waxay ahayd oxygen oo gas ay ahayd sax oo loo qaybiyay 2 marka waxaan dhihi doonaa kaarbonadeeda kaarbonkii waxaan qaadan doonaa inuu yahay 3 intan maxay noqon doontaa carbon dioxide plus waxay noqon doontaa 4 waxay noqon doontaa 3 carbon water soo qaado number of carbonka maxaan qaatay 3 aan qaatay okay tan waxaan rabaa inaan balance ku sameeyo tusaalahaan kale waxaan soo qaataa C3 H6 plus labadan isku dhufo waa 9 9 wuxuu ka yimid labadan tiro isku dhufo loo qaybiyay 2 oxygen gas saddex plus 3 plus 3 marka waxaan rabnaa hadda tan inaan balancegeedii aan rabno inaan haweyno saa labadan tiro ma isku qaybsamaan waaye inaan isku fiirinaa muhiim ah labadan tiro ma isku qaybsamaan 9 iyo 2 waa may kiisi dhawey kamid marka bracket geli waxa dhan waxaa ku dhufataa 2 ku dhuf 2 ku dhuf maxaa noqon doonaa 2
iyo 3 carbon aa soo bixi doona hydrogenada 6 plus maxaa isla bixi doona 2gan iyo 2gaas isla bixi doona inta maxaa ka dhala doona 9 keliya ka dhalana oxygen gas laba waxaa ku dhufataa 3 6 plus waxaa ku 6 what waa balance sheekada maxay noqon doontaa balance sababta say balance u noqonay waxaa ku dhufataa 2 3 ku dhufo 6 carbon inta taal intana 6 carbon taal sax intaas hydrogenated waa 18 salaano kale waxaan leenahay 2 ku dhufo 9 waa 18 okay lixdan waxay ka dhexdaa carbontan iyo oxygen-tan ka dhexdaa oxygen-tu waxay wataa sabto ay wataa labadan isku dhufo 12 waxaa ku dartaa 6 lixdan lagu daraayo waxay ka dhexdaa hydrogen-ta oxygen-ta waxay noqonaya 18 hydrogen waa haysta marka meeshan hadda waxaa kaaga cad waa balance marka markaas adiga waxaa ogaataa 2gan goorma bracket la geliyaa mataqaan xitaa alkeenka marka la joogo labada tiro hadday isku qaybsamaan waa isku qaybina caadi ah wala xanay sida u soo qaaday laakiin haddii aysan isku qaybsamin kasii dhaban ay kala noqdaan 2 maxaa uga saaray whole bracket uga saaray 2ga baabi'inay marka hooseeya baabi'in very important ayaan jeclahay dawadaha qiimaha badanow inaan nala socotiin isku daya casharka marka waxaan rabnaa waxa la yiraahdaa polymerization wax la yiraahdaa ka hadlo polymerization horta polymerization-ku waa qayb aad muhiim u ah waliba xagga marka loo fiiriyo xagga linkage-ka wax la yiraahdo waxa la isku xiraa wax la yiraahdo monomers wax la yiraahdo waxa loo isticmaalaa wax la yiraahdo monomers waa linkage in wax la isku xiro salaano kale waxaan dhihi doonaa polymerization is the most useful commercial reaction of alkenes waa mid ugu waxtarka fiican marka la fiiriyo reactionada marka la fiiriyo alkeneska waa polymerization-ka waa salaano kale meesha ethene ayaa waxa lagu daray meesha waxaa yaala small molecule of alkene alkenada yararka ah waxaa lagu magacaabo wax la yiraahdo monomers tusaale monomers oo ethene ah ayaa waxa lagu daray ethene kale haddana waxa lagu sii daray ethene kale waxa lagu sii daray okay meeqa ethene la 1 2 3 ethene la isku daray marka saddexdii ethene la isku daray maxaa ka dhashay polymer wax la yiraahdo polymer waxa waa polymer waa large molecules ka dhashay large molecule oo waliba single bond ka dhashay soo ma aragtid small molecules ka maxaa loo yaqaanaa monomers waa large molecules of alkene ka maxaa noqon doona wax la yiraahdo polymer waxa ka dhala doona maxay noqon doonaan wax la yiraahdo polymers inta gacantan way furan tahay leexo ka bacdina waxa waa meeshan double bond ga all 6 carbon ka tirsan 1 2 3 4 5 6 waa 6 carbon mi single ka dhig okay so marka meeshan waxa la wax la yiraahdo polymerization ayaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo monomers wadaha qiimaha badan oo waxaan ka codsanaynaa in casharka aad saartid subscribe aad saartid macnaha channelka ka wadnaaya casharka daa u xiistana walaalaha qiimaha badan oo meel kasta aad joogtiin comment noo soo qora wixii wax ka bedelisanaa waan u baahanahay aad baad mahadsantihiin